horta maalinta qiyaamo maalin dhib badan weeye mawaaqiful qiyaamo ayaa la tagi doonaa wax la yiraahdo ahwaalul qiyaamo ayaa jira qiyaamadu shadaa'id fara badan ay iska leedahay ilaahay marka uu tilmaamayay waa tawdahay yooma yafirul mar'u min akhihi waa maalin qofku walaalkiis ka cararaayo wa ummihi wa abiihi hooyadiisa aabihiisa uu ka cararaayo wa saaxibatihi wa baniihi zawjadiisi iyo caruurtiisa uu ka cararaayo waxaana ugu wacanowdha ilaahay likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughniih qof kasta waxa weeye maalintaas waxaa haysta sha'ni oo qayrkiisa inuu fiiriyo ka deeqaaya oo asaga ayaa markaasaa dhibaato fara badan iyo mashaakil fara badan ayuu ka hor muuqdaa dadkan marka kala cararaaya way u kala cararayaan qof walba qofkii kala xuquuqda oo ku lahay ama ku gabood fasho isleeyahay markaas saasay u kala cararayaan shidada markaas jirta ayaan la isxasuusanaynin oo xasuusta ay lumaysaa mawaaqif fara badan ayaan wax xasuusay aysan jirin oo qof walba markaas nafsi ay taagan tahay marka hadda inay qiyaamada wax badan ay jiraan rasuulkeena kaleey salaatu salaam waxa ka soo arooray ahadiis saxiixa oo nabiga kaleey salaatu salaam naarta iyo uga waramaya amuuraheeda hadda marka waxa loo baahan yahay wixii jira in la ogaado sida dadkaas wanaagsan oo salafu saalix cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala ay uga cabsanayeen ilaahay inaan uga baqno ayagoo amalkoodu amal wanaagsan oo ahay dad wanaagsan oo maqaamkooda aanan gaari karin ay ahaayeen cabsida ilaahayna heerkaas ay ku gaartay waxa loo baahan yahay inaan markaas waxa weeye ayaga wadadoodii aanu qaadno oo aanu ku dayano ayaa loo baahan yahay maalinta qiyaamo maalin aad maaratay u shida badan weeye dhibaato aan yareen ayaa naga horeysa arintaas in laga fikiro ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay maalin waxa weeye naarta jahannamo ayaa la keenaa hawdha rasuulku kaleey salaatu wasalaam ayadoo markaasi jahannamo waxa uu dhahay rasuulku xadiis saxiix muslimka oo dhigaayo waxa uu dhahay rasuulku yu'ta bi jahannama yawma idin maalintaas qiyaamo jahannamo ayaa la keenayaa laha 70000 zimaamin ayadoo 70000 oo hoggaan lagu jiidaayo maca kulli zimaamin 70000 malakin halkii hoggaana 70000 oo malag ayaa yajiruuna jiidaaya maxsharka qiyaamada ayaa la keenaya markaasay waxay u soo fakanaysaa dadka ahlul maxsharka oo carada ilaahay ay ku dhacday gaalada iyo munaafiqiintii iyo dadkii jabaabirada ahay ayay u soo fakanaysaa naartu waa tawda ilaahay kallaa innaha lada nazaa'atu lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a waa tawda ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas ayaa xarkahaas ayaa lagu celcelinayaa ayadoo markaasi dadka kufaarta intaan maxsharka lagu kala xukumo meeshooda inay ku gubta doonayso marka waxa la rabaa in la ogaado wax laga baqo inay naga horeeyaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala asagoo naxariis badan haddana ilaahay cadaabkiisu inuusan sahlanayn oo dhibaato fara badan ay jirto laakiin hadda anagu waxaan rabnaa inaanu baranno dadkeeni wanaagsanay oo salafu saalix cabsida ilaahay meesha ay ka joogeen waan hadda aanu soo qaadanayna xadiis rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ayaa maalin wuxuu akhriyay inna ladayna ankaalan wa jahiiman wa da'aaman daa qussatin wa cadaaban alima asagoo ilaahay naarta ka warama wuxuu dhahay agtayna waxa yaal xarko iyo jahiimo iyo da'aam lagu marganaayo iyo cadaab alima oo loo diyaariyo gaalada ayadaas nabigeena kaleey salaatu wasalaam akhriyay wa kana waraahu hamraan ibn a'yun nabiga gadaashiisa waxa jooga marka nin saxaabi oo la yiraahdo hamraan ibn a'yun la yiraahdo fakharra maytan radiyallahu anhu Allahu akbar hamraan markuu maqlay aayadaas waa dhacay isla markaasna horay uu ka dhinto naftii abadiisaba cabsida markaas gashay ayaa markaas uu la dhacay markaas waxa la arkay isagoo meyd hal arkay madahada aayad quraan iyo xadiis nabiga kaleey salaatu salaam ina dhageysano miya maartay asaas noqonayna xagee saameynteenu xagee joogtaa ilaahay ka cabsido alla ka cabsido xagee joogtaa aayadaha quraanka bacdu saxaaba wa taabiciin iyo dadkii salafu saalix dad badan ayaa u dhintay aayado quraan hoy dhageysteen dad badan baa la miir dabooli jiray dad badan baa ooyintooda aysan go'i jirin ayagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanaya
إن قفك مؤمن كاهو أو بقه والوباهي أو سنمركز أو ننقن قف إسلكتي قف مستدرج أو وحوي مركز كتسون أو نهاية أنا وحكا سأيان دادية وحكا سأيان هاي جنة كواه اللي يسيبي ما هينين دأبي قدتك صالحين تساس بيسان هين نينك اللي يرادو يزيد الرقاشي أو تابعين تاهي أيا سيد أو هو أتغي تابعي جليل كاهيو عادل كاهي عمر ابن عبد العزيز مركزو أو كدهي مركي عمر ابن عبد العزيز يزيد الرقاشي أتغي وهو دهي إذن أيوه يا يزيد وإيوان يوده وأنين مارتا يا أميركي أمام إمامكي دولة إسلامك ولا أجي عمر ابن عبد العزيز تاريخ غير أيوس كليه تقوى ديسة إيه عدالة ديسة وقت ديسة وحالة شيء عدالة ده سيدا يعم امتي أرلد إلهي حيوان ونحطا إنه سنجرين أو ورابها إيه اللباحة إيه مركاسي قيلة إيه الله إيه أريق كلنا إسلاد داقايين معايا أرلد واحد dadka baahalaha ka dhigaya oo xayawaanka xumeynaayo waxa weeye cadaalad xumada weeye taabiicigaas jaliilka waxa uu dhahay wacdiyo dhahay markaasuu waxa uu ku dhahay ya amiir almu'miniin innaka awwalu khalifatin yamut waxa tahay khaliif midka ugu horeeya oo dhimanaya umar markaas waa ooyaalay markuu muddo ooyayo haddana iyo wax igu sii darow dhahay markaasuu waxa uu dhahay laysa baynaka wa bayna abika aadam أبو حي نوضحي أذيك إيا آبها آدم وح نول أو آباء ذي مجرى نوضح أنت صودا وحوية الدنيا واخدتك يا نوضح مركزو عمر ابن عبد العزيز هدنا أوين أيو لطعي مركو أوين تكسو تقو هدنا وحي وصي دروضح مركزو ليس بين الجنة والنار منزلة أخرى هوضح ذاتك هدو وتوضح الله فريق في الجنة وفريق في السعير jannada iyo naarta meel kale u dhaxaysa ma jirto oo dadka ama naar buu galaya ama jannay galayaan markaas waxa weeye fasaqada umaru maqshiyan ali umar ibn abd aziz dhulka ayuu ku dhacay isagoo la miir daboolay ayuu dhulka ku dhacay inta markaas waxa weeye oo cabsidiisa ay tahay iyo waxyaabaha markaas oo ka khoofay bal fiirba waxa la sheegay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salih oo taabiciinta ahay ayaa maalin waxa weeye ayuu adimaayay nin muadin هو ahay ninkaanu markaas wuxuu dhahay ashhadu an la ilaha illa allah markuu saas dhahay waa miir dabool ma leeyahay manaaradii markaasi oo ku adimaay ayaa laga qaaday markaas ayaa meel masaajidkii alla keenay walaalkiis ayaa markaas waxa weeye asaguna waa bedelay yiri markaas uu aadaamay dadkii ayuu dushiyay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salihne inta